وإذن مهد علينا يا إماتين كأن إمد إن كستو قيب كهيد سعدال نبضين يدبديس قلمدو وأن كمراي دمان gobolada ama degmooyinka galmudug haddana kan waan ka mahadinayaa sababtoo ah casuumad ayaa la ii fidiyey casuumadii odayaasha halkan fadhida ay ii fidiyeen ajiibideedii ayaan ku imid waa mahadsantii inuu suldaanku ugu horeeyay markii aan cadaado imid cadaado markii hore waa la casuumay markii dambana waa la amray waxa la yiri waa inaad timaadaa amarkiina waa fuliyay waa kana waan idin marka saddexaad waxaan ka mahad celinayaa sida sharafta iyo diiranaanta leh oo la ii soo dhaweeyay sida aan u dareemay gacaltooyo walaalnimo wadaninimo sida aan u dareemay inaan u imid dadkii walaalayahay oo matalayay oo raalli iga ah iyadana waa ka mahadinayaa waana idin qoran tahay waa mahadsantihiin halkan waxaan idinkugu sheegay intii shalay joogtay inaan aaminsanahay maamul goboleedka galmudug inuu meeshan aan fadhina ka soo bilowdo waxaan sheegay dad badan oo halkan fadhiya oo ambassadorku ka mid yahay oo dad kale ka mid yihiin generaalku ka mid yahay iyo kulligiin dadka halkan fadhiya inaad xoog soo geliseen inaan nimaadno meesha aan joogno waqtina aad ku bixisaan xoolana aad ku bixisaan nafna aad ku bixisaan in la idin garto dadaalkaas aad muujiseen waa qayb kamid ah in xal loo helo caqabadaha haddana hor taagan marka horta waa idinkaga mahadinayaa dadaalka aad soo geliseen laakiin hadda waxaan ku howlanahay inaan dhammaystirno galmudug xooggan tayaysan u adeegi karta shacabka reer galmudug meel walba ay joogaan oo aan khilaaf lahayn oo aan meel mugdiya lagu dhisin oo dadkoo dhan ay isugu yimaadaan oo dhammaan beelaha reer galmudug intay maalin cad meel fadhiistaan maalmo fadhiyaan isbuucyo fadhiyaan iyagu ka arrinsadaan waa maxay qaabka ugu wanaagsan oo loo wadaagi kara maamulka sidee loo dhisi karaa maamul shaqeeya waxaan soo gaarsiinay meel fiican oo aan rabo meeshii aan soo gaarsiinay inaan intaan idin sheego halkan aad kala qabsataan shaqadana idinkaa iskale anigu iskama lehi xukuumadduna iskuma leh madaxweynuhuna iskama leh wasiiraduna iskama leh waxaa iskale shacabka madaxda odayaasha gabdhaha dhallinyarada reer galmudug idinkaana la rabaa inaad waxaad u wada dhantihiin samaysataan degmo ka maaranta ma jirto tuulo ka maaranta ma jirto maamul la'aanna waa nolol la'aan waa adeeg la'aan waa horumar la'aan waa midnimo la'aan maadaama la idinka soo gaaray idinka marka oo aad bilowdeen haddana waxaa ku khasbantihiin inaad hormuud ka noqotaan waa mahadsan yahay senatarku wuxuu yidhi maalmaad dhinacaas nooga maqneed ma idinkaga maqnayne shaqadaa ii dirteen aan ku maqnaa inaan halkaas joogay halkan joogana shaqadiinni baan ku maqnaa idinkaan idiin maqnaa hawshiinni baan hayaa marka maalmo la kala tiriyo haba yaraatee ma lahan waa dan guud oo kulligeen naga wada dhexayso oo idinku weliba aada hormuud ka tihiin waxaan marka rabaa inaan idinku baraarujiyo kow waxaa hadda soo dhoweynay in maadaama maamul goboleedka galmudug dastuurkiisa ay ku qoran tahay in magaalo madaxdiisu ay tahay magaalada dhuusamareeb si gogol halkaas loo dhigo la isugu yimaado 26 juun idinkoo indhihiinu ay soo jeedaan dhammaan shacabka reer galmudug ayaan shuruud ku xiray oo ah haddii la rabo in halkan la isugu yimaado oo lagu tashado waa in hay-adaha amniga federaalku kulligood shuruud la'aan ay ka howlgalaan meeshaas waxaan kugu bishaareynaya in ciidamada nabad sugidda ay shaqada bilaabeen ciidamadii booliska halkan maanta aan qaar ka dirayna ay u socdaan halkaas 21aad ay halkaas u guureyso
ciidamadii danab ay halkaas ila joogeen oo ay noqonayso meel amnigeeda ay joogaan ciidamada federaalka Soomaaliyeed macnaheedu waxay tahay in shuruudihii la soo buuxiyay labo waxaan rabaa inaan idin sheego wax idinku aad u fahamsantihiin oo aan rabaa inaad uga faa'iideysaan ummadiina oo ah ciidamadii joogay Dhuusamareeb waa la diiwaan geliyay waa la qarameeyay waxaa mushaarkooda bixin doona laga bilaabo 1 bisha soo socota dawladda federaalka waxaa loo bedeli karaa meel walba waxay ka amar qaadanayaan taliyaha ciidanka xoogga shalayto waxay joogeen wasaaradaheena kala duwan balambal halkaasoo ciidan laga diiwaan geliyay 100 ah ayna diyaar u yihiin iyagana hubka dhan in iska soo wareejiyaan maanta waxay joogaan xeraale oo sidaas oo kale diyaar ah inay hubka iska soo wareejiyaan ciidanka joogana la diiwaan geliyay bari dambe waxay imaanayaan caabudwa idinka waa aniga idin la jooga maadaama galmudug meelo ka badan oo kamid ah shabaab ay haysato shacabka reer galmudug ay isu soo baxeen inay midoobaan qoryaha iska dhigaan fursadii ugu qaalisaneed aan haysano inaan kulligeen intaan soo baxno cadowgana kor saaran iska kor qaadno si dhulkana jidadkana aan u dhisano dekedana aan u dhisano dhaqaalahana la kobciyo waxaan idinkugu yeerayaa fursadaas iyada ah inaan la dayacin oo aan ka wada shaqeyno waxa kale oo aaminsanahay inaa khibrad u leedihiin inaa ogtihiin amni in laga shaqeeyo sida ay muhiim u tahay waxaan soo jeedin lahaa marka maadaama gobolladii kale oo aan tagay ama degmooyinka aan tagay kulligood ay aqbaleen nidaam ah inay cadowga iska xoreeyaan idinkana aan la idinkaga maarmin waxaan rabaa inaad iyadana aad ku baraarugsanataan arrinka saddexaad oo aan rabo inaad laga bilaabo maanta shirkiinuna uu ku saleysnaado waxa ay tahay waxaan rabnaa in la bilaabo dib u heshiisiin dhab ah oo ka dhalata galmudug beelihii wada dhistay oo dhan in la isu keeno oo idinku hormuud ku heedaan meeshaas waxaan rabaa si buuxda inaad uga soo qayb gashaan hormuudkana aad ka noqotaan shaqadiinana aad qabsataan si galmudug kulli laga wada raali yahay nidaamkeeda la isku og yahay in la dhiso ugu dambeyntii halkan waxaan u imid sidoo kale inaan darso baahida gaarka ah oo aad qabtaan ama jid ha ahaato ama isbitaal ha ahaato ama iskuul ha ahaato ama adeeg kale ha ahaato si deegaankan ku dhowaad 60 sano horumarku ku liitay aan isku dayno inaan wax uga qabanno laakiin si wax looga qabto waxaan aad ugu faraxsanahay in idinkoo midaysan aad isla fadhidaan si waxa aad qabtaan ama baahida aad qabtaan iyadoo midaysan aad liigu sheego ama liigu soo gudbiyo waa ka mahad celinaya waxa kaloo laakiin aasaas aan rabaa inaan idin xasuusiyo hadaa rabtiin deegaankana inuu hormaro matalaad yeesho amnigiisu shaqeeyo horumar muuqda laga helo waa in uu leeyahay maamul shaqeynayo oo idin matali kara meel walbo aad ka joogtid galmudug oo caruurtiina iyo dhalinyaradiina iyo hooyooyinkiina iyo odayaashiina cid walbo kamida ay heli karto fursad ay ku heshay adeeg inta maamul la'aan maamul xoog leh oo shaqeynayo oo idin matala oo rabitaankiina ku yimid kulligiin meel walbo joogtaan inta laga helayo waa dhutinaysaan mana la gaari doono meesha la rabo dalku waa federaal waa dawlad goboleedyo waa muhiim inaad leedihiin dawlad goboleed dhisan midaysan oo shaqeynaya oo xoog leh shalay iyo maantaba waa idin la joogay waxaa ii muuqata halkan diilo weyn
meelihii aan imidna waxaa ka muuqata yilidiilo weyn in dhalinyaro Soomaaliyeed oo qoryahooda wata ay isdiiwaan gelinayaan ay diyaar u yihiin inay dalkooda difaacaan galmudug fursada la soo diristay hadda Soomaaliya oo dhan ay ka faa'iideysan karto fursadaas la soo diristana waxa waaye si galmudug u horumarto waa in amnigeeda la hormariyaa si amnigeeda loo hormariyo waa in la helaa ciidan iyo dawlad u diyaar inay ka shaqeysaa intiba waa diyaar meelihii kale oo dhan waa soo maray waa diyaar diiwaan gelis ay ciidanka ku jiraan dawladdiya dhex fadhida taliyayaasha ciidamada ila socda halkan joogay shirkiinu waa inuu ku saleysnaadaa hal shay oo ah waxaa jira dad Soomaaliyeed oo walaalihiina oo galmudug idin la degan oo sida aad u tashanaysaan aan u tashan karin oo mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay idinku sida u midooba lahaydaan oo mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay idinku inaad u soo diyaar garoodaan cadowga inaad ka qaadaan caruur reer galmuduga oo walaalihiina oo caruurtiina ayaa mustaqbal seegaysa oo jiil ka haraysa haddaadan idinku intaad u fikirtaan u dulqaadataan kuwa aan dulqaadka lahayn meel walba ay joogaan u naxariisataan waxay soo ogolaataan haddaadan dadkaas walaalihiina mustaqbalkooda ka shaqaynina idinku waa fiican tihiin galmudug oo dhanaa mustaqbalkooda xumaanaya marka galmudug mustaqbalkeeda xumaadana Soomaaliya mustaqbalkeeda xumaanaya tan kale halkan waxaa u fadhidiin galmudug horumarsan deegaankiina sida ku horumari lahaadaan deegaan aan maamul lahayn amnina lahayn ma la horumarin karo adduunyo imaanayso idin maal gashanaysana ma jirto shaqadii aan soo qabtay oo dhexdhexaad ka ahayd hadda laakiin iftiin weyn ah oo dawladda oo dhan idinku garab taagan tahay meel fiican ay maraysaa waxaan aad ugu faraxsanahay idinkoo wada jooga rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel inaan idinku soo simay